maanta uu ka baxshay beesha hawiye gaar ahaan reer dhuusamareebeedna waxay ahayd firfircoonidii oo ku yiqiin iyo inaan doqoni ka soo horjeedi jirin iyo ciddii wax ka halaysa inay shaaribada ka marooji jireen casir dheer tilmaantu hore ugu yiqiinay ahayd in shidaalkii ka dhammaaday baabuurtii aad dadka ku qarxin jirteen ama ku qaxi jirteen in energy-ga idinka dhammaaday adinka in shidaalkii idinka dhammaaday waxaanu idin leenahay idin soo dhiiba magacaygu waa Suldaan Diiriye Cali Abtidoon shirkeennan waxaan doonayaa inaan uga hadlo qodobo dhowr ilaa 4 kow dhiirigelinta ciidamada gulufka dagaal kula jira al-shabaab ee Soomaaliyeed labo fariin aan u dirayo bulshaweynta Soomaaliyeed saddex fariin kale oo u dirayo ururka al-shabaab oo runtii intay ummadda dhibi kareen soo dhibay haddana aad moodo isbeddelka socda inaysan ku baraarugsanayn iyo qodobka ugu dambeeya ahna kan afaraad oo aan rabo nin odaya ruugcada siyaasiyeed ahna madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare asbuucan horaantiisii hadal oo sii daayay runtii kuna taargetsaday reer dhuusamareebeed iyo beesha hawiye qolobana si ay u fasiratay qaybta aan isleeyahay waa ku nuxuraysnaa inaan halkan kaga jawaabo waxaan rabaa inaan qodobadayda dib u milicsado waxaan halkan ku dhiirigelinaynaa kuna ammaanaya anoo afka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan Galmudug fiiro gaar ah 4 gobol ee hadir gulufku isku si uga socdo la iskuna yiraahdo gobolada dhexe dhaqankooda iyo bulshadooda anoo ku hadlaya codkooda waxaan si boqolkiiba 500 ah u dhiirigelinaynaa una bogaadinaynaa sida hadda wax u socdaan annagoo si gaar ah u ammaanayna xog ogaalna ugu ah dagaalka wajigiisa koobaad wareegiisa labaad ee hadda soconaya oo dhammaan ay iska kaashanayaan dadweynaha Soomaaliyeed ee doqonta dhibkeeda qarsan waayay iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya intaas iyo mas'uuliyadda dhammaan ku dhex sugan labada daraf oo aan soo tilmaamay waxaan rabaa inaan iraawo waa mahadsantihiin halkiina ka wada waxaan rabaa inaan ammaano dagaalka dhulka gaaraya 500 kiiloomitir garbasinan uga socda sideedana aan jabin cadow la dhihi karin ee la dhihi karo sifayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan hubaa in la guuleysanayo qodobka dhiirigelinta intaana ka bixin waxaan rabaa inaan ku duceeyo Ilaahay haydin guuleeyo hana idin sharfo qodobka waxaan rabaa inaan intaas iraahdo qodobka fariinta aan u dirayo ummadda Soomaaliyeed dadka Ilaahay wax siiyay oo ganacsato leh oo culimo leh oo haweenweynaha Soomaaliyeed ee firfircoon leh oo bahda dhaqan kale oo dhalinyarada leh dhiigga cusub ku jiro waxaan rabaa inaan iraahdo ciidamadaas waajibaadkoodii qaatay dhiirigelintoodii kala ahayd noocyada kala duwan oo la rabo culimadu inay kalaamka Ilaahay iyo furimaha ay ahkaamta diinta ugu furfurto una sheegto ciidanka wax allaale waxa ay qabanayaan ee cadawga ay kala hortagayaan inay ajir ku helayaan bahda dhaqanku inay kaalintooda qaataan geeli iyo hilibkii iyo qalabkii muxuu ahaa malaaga iyo timirtii qalabkii bislaa iyo barixii inay ka daba qaadaan ciidanka bulshadana u soo baxaan isla markaasna aan istaagno iyadoo layga bilaabayo aniga dhalinyaradana aan rabo inay dhiigooda ku bixiyaan halkaas iyo dhaqankooda haweenweynahana aan leeyahay kaalintiinii mashxaradda iyo dhaqaalaha isugu jirtay oo nimaad dushiisa ka mashxaradaani uusan soo laaba jirin asagoon soo taaban darbigii taargetka u ahaa cid walba waxaan kula dardaarmayaa kaalinteedii inay qaadato waana rajaynayaa dadna inuu hadda shaqada ku jiro dadna oo baraarugi doono
labadaa qodob intaa markaan uga baxo waxaan rabaa halkaan inaan u mariyo al-shabaab fariin aan isleeyahay kuma baraarugsana isbedelka al-shabaab xogta aan hayo isla markaasna sugan waxay sheegeen in shidaalkii ka dhammaaday baabuurtii aad dadka ku qarxin jirteen ama ku qaxi jirteen in energy-ga idinka dhammaaday adinka in shidaalkii idinka dhammaaday waxaanu idin leenahay idin soo dhiiba dowladdiina wanaagsan ummaddiina Soomaaliyeed baa wanaagsan dhibka dhaafa maahadka iyo rafadka dhaafa wajiga intaan xabad idinkaga dhicin isi soo dhiibaan idin leenahay qodobkaasaan rabaa si qaybta yar ee Soomaaliyeed ajnabigii dhibka halka ka waday uu iska tagayo waa ognahay inaan ugu baaqo qaybta yar Soomaaliyeed waxaan ognahay waxa kamida xataa intii qaraxa loo tababaray iyo qaraxii la diyaariyay intuba inay farihiina ka dhamaadeen waxba aysan ku jirin markaa isi soo dhiiba qodobka ugu dambeeya ahna kan afaraad tilmaantii siyaasigii ruucadaaga ahay runtii aniga waxaan rabaa inaan ninka odaga ee ruucadaaga ergagana ah sama jeclaha ah aan iraahdo hadalka uu sheegay wuxuu ahay mid ay ka keentay jacaylka oo u qabo in al-shabaab laga adkaado saacada koobanna lagu soo gabagabeeyo tilmaanta uu ka baxshay beesha hawiye gaar ahaan reer dhuusamarebeedna waxay ahayd firfircoonidii oo ku yiqiin iyo inaan doqoni ka soo horjeedi jirin iyo ciddii wax ka halaysa inay shaaribada ka marooji jireen casir dheer tilmaantu hore ugu yiqiinay ahayd laakiin kuma darsan madaxweynihii hore ahna ergaga hadda cidda lala dirirayaa inay sidaas ka bedelan tahay ayna tahay cid loo baahan yahay in shacabka maatada laga badbaadiyo hantida laga badbaadiyo iyo magaalooyinka xoolahana laga badbaadiyo mar haddaad intaas badbaadinayso isla markaasna aad rabto inaad dal xoreyso waxay u baahan tahay shaqshaq badan waxay u baahan tahay tifaftir badan u fiirsi badan iyo naqshado kala duwan marka in dadka la badbaadiyo sabab la xiriirta ayaa loo isha loo dabayaa loo shuuraynayaa cid ka baqaysa nimanka ma jirto madaxweynaha qaranka cid dulaysanaysaana ma jirto ama muxuu ahay barnaamijkaas ku ceebaynaysa waqtigoo kooban awgiis waxaan rabaa inaan idin iraahdo adeer waa mahadsan tahay hadalkaagiina dhiirigelin baan u qaadanay asbuuca dambena waxaan rajaynayaa inaad si kale u hadasho kadib markaad qiimayso aad iyo aad u mahadsan tihiin